ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka hore sheekh iyo caalim iyo daaci saddexdaa erayba waa ka cudur daaranayaa. runtii sheekhulcilmi iyo sheekhu sinni labada midna ma yihi, daacina ma yihi, caalimna ma yihi. haddii laga maarmi waayo waxaa la dhihi karaa mubaliq waa qofka wax loo soo dhiibay, wixii loo soo dhiibay ummadda u sheegaya. wixii annagu culimmadeenna aan ka maqalay ee cilmi ah, ee khayr ah, ee wanaag ah, ee dhiirigelin diineed ah, baan dadka walaalaha iyo gaadhsiinaa si ilaahay annagana noo hadeeyo oo noo islaaxiyo, iyakuna ay u islaaxaan. marka jazaakum allahu khayr baan leeyahay dadkan macalimiinteenan madrasadan gacanta ku haysa iyo dadka xaafadaba saad noo soo dhaweyseen. waa ilaahay baa abaal iyo ajar inaga siinaya. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحكامت إسلام كإلهي وحو نوغو سو دجيي si aan adduunkan iyo aakhiro ay nolosheennu noogu hagaagto. awlaadda aan haysanee ilaahayna siiyey iyo hantida adduunyada dul taalla ee qof walba uu haysto intuu doonay ha ka haystee, ayadana waxaa loo siiyey si laynoogu imtixaamo. shay waxaa lagu siiyey si aad ugu liibaanto oo noloshaada adduunyada iyo aakhiradu ay ugu hagaagto, ugu toosto. shayga kalena waxaa lagugu siiyey adduunka intaad joogto lagugu siiyey si adduunka dusheeda lagugu ikhtibaaro, lagugu ibtileeyo. qur-aankaana inoo kala sheegay oo yidhi: laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna baa ilaahay yidhi. laqad anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban baan nii soo dejinnay baa ilaahay yidhi. kitaabka qur-aanku waa munazal fiihi dikrukum. kitaabka dhexdiisana waxaan ku dhex dhignay oo dhexdiisa ahaaday baa ilaahay leeyahay sharaftiinnii iyo karaamadiinnii baa qur-aanka ku dhex jirta ilaahay yidhi. afalaa tacqiluun, miyaanad dad caqli la-aanad ahayn baa ilaahayna leeyahay. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقاذا با إلهي إليها إنك لما هي حولهنا يا أولادين وفتنة ويان. إلهي أكتي سنة واحد كالذيهين با إلهي أجر وين يا مش قايد وين بات كالذيهين با إلهي. فتنة وحال إلى هدفك أدونك إلهي كوك إن الشيء كمشغولية أيا فتنة إلى فتنة. marka awlaadu ayakoo nicmad haddana mar walba nicmad ay tahay ilaahayna siiyey, haddana waa fidnad weeyaano oo laynagu fidnaynayaayo mar walba qalbigii xaggooda ayuu aadayaa. salaada dhexdeedii baad ku xasuusan, qur-aanka adoo akhrisanayaad ubadkaaga xasuusan. adduunyada kale dukaan hadduu qofku leeyahayna salaada dhexdeeda laga yaabaa inuu dukaankiisa ku xisaabiyaba. marka fitna waxaa la yidhaahdaa waa waxaa hadafkii adduunka alla uu kuu keentay kaa leexinaya fidna la yidhaahdaa. marka axkaamta ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey. axkaamtu waa maxay? iimaanka, iimaaniyaadka iyo cibaadaadka
iyo maaragtaanay mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo alxukmu walqadaa waa inta ay shareecadda islaamku ay ku fadhiday weeyaan. intaa shareecadda islaamku kama baxsanay bay culimmadu leeyihiin. iimaaniyaad waa alcaqaa'id, qalbiga iimaaniyaadku ayay ku tacalluqaan. in dadku ilaahay ay rumeeyaan oo malaa'igta ay rumeeyaan oo rususha alla soo dirayna ay rumeeyaan oo kutubta ilaahay soo dejiyeyna ay rumeeyaan oo maalinka aakhirada ee dambaysa yowmalqiyaamahana ay rumeeyaan. khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayana inay rumeeyaan inuu ilaahay qadaray. cibaadaadka salaada ayaa ka mida oo soonka ka mida oo sakada ka mida oo xajka ka mida iyo wixii kale ee soo raaca faraa'id kale iyo sunan kale ayakuna waa cibaadada ilaahay loogu dhowaanayo. mucaamalaad waxaa la yidhaahdaa dhaqanka adiga iyo mujtamaca aad ku dhex nooshahay nigala dhexeeya mucaamalaad la yidhaahdaa. dadka aad dariska aad tihiin iyo dadka aad shaqo adduunyo ayna dhex marto iyo dadka mucaamalaad oo ayna dhex maraan ama dadka aad wada shurakowdaan, dadka aad la ballantid, dadka maaragtaane saaxiibada aad tihiin, inaad akhlaaq dhaqan wanaagsan oo diiniya aad mar walba kula dhaqantaa ayaa mucaamalaad la yidhaahdaa. mucaasharaadkuna waa nolosha aqalka dhexdeeda weeyaane qoyska, sida ninku naag xaaskiisa ula dhaqmayo, sida xaasku xaaskeeda ula dhaqmayso, sida ilmuhu aabbihii ula dhaqmayo, sida ilmuhuna aabbihii hooyo ula dhaqmayo, sida walaashu walaalkeed ula dhaqmayso, sida qaraabada loola dhaqmayo. mucaasharaad noloshaasi cishra la yidhaahdaa. akhlaaqiyaadkuna waxa weeyaan khalqigan ilaahay nagula abuuray adduunka oo dhan waa inaan xuquuqdooda iska ilaalinaa, akhlaaq wanaagsanna aan kula dhaqanaa. alxukmu walqadaana waa maxay? waa in shareecadda islaamka la fuliyaa oo dadku sharciga islaamka ay ku dhaqmaan ee ku camalfalaan. marka axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey. hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan, adduunkooga u hagaagi, aakhiradooda ayaa u hagaagi. hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan, adduunyadooduna waa ka khasaare, way ka hallaabi, aakhiraduna way ka hallaabi. walaalayaal, oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi: man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu. qofka hamigiisa ka dhiga buu nebigu leeyahay adduunyo, kaanat iddunyaa hamuhu, labada indhood dhexdooda faqriga baahi loo saaraa, umuurtiisana ilaahay barya galbeedba ku kala shaydhiyaa, umuurtiisoo dhanna waa la kala tuuraayo waa la kala daadiyaa. adduunyadana ma hela buu nebigu yihi ilaa wix ilaahay u qadaray mooyaane. qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira, ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo taacadda ilaahay ku dadaalana, faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisa oo qina ayaa loo geliyaa qalbigiisa. umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaayo arrimihiisa waa la isku soo dhadhoweeyaa. adduunyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi. marka axkaamtaas qaar baa jirta axkaam rag iyo dumarkuba ay ka siman yihiin oo waxaa ka mid a iimaaniyaadka. xagga iimaaniyaadka waan ka simannahay oo iimaaniyaad ragga u gaara inay aaminaano dumarka laga dhaafay ma jiree. dumarkuna arkaan aliimaanka waa inay ilaahay iyo maaragtaane iyo wixii ka farcama iimaaniyaadka waa inay la yimaadaan. cibaadaadka kadaalika haween iyo ragba waa laga rabaa, akhlaaqda wanaagsana rag iyo dumarba waa laga rabaa. laakiin waxaa jira axkaam haweenka u khaasa ayaa jirto ragga aan khusaynin. axkaamta haweenka u khaasa waxaa ka mid ah waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi, gabadhu inay gurigeeda ku ekaato oo gurigeeda ay dhex joogto waa axkaamta haweenka u khaasa weeyaan. oo aqalada haweenku 3 aqal unbay leeyihiin: aqalka aabbaheeday ku dhalatay iyo aqalka ninkeeda iyo qabrigeeda. 3daa aqal unbay haweenku ay leeyihiin, aqal afraad haweenku ma leh. laana 3daa meelood baa haweenka loogu talagalay inay ka dhexeeyaan.
aqalka aabaheeday ku dhalatay halkaasay ku jiri way ku barbaari waa lagu tarbiyadayn man caala jaariyatayni xataa tabluqa ana wahuwa ka haatayni fi ljanna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka laba hablood ay u dhasheen ee barbaariyey ee koriyey ee tarbiyadoodana wanaajiyey baa rasuulku yidhi aniga isagu labadaa farood buu nabigu isku qabtay farta la yidhaahdo murdisada iyo fardhaxada labadaa farood buu nabigu isku qabtay calayhi salaatu wasalaam sida labadaa farood ay iskugu xigaan ayaa ninka laba hablood ay u dhalatay labadaa hablood tarbiyadeeyey ee tarbiyadooda wanaajiya aniga isaguna jannada sidaasaan isku nahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tarbiyadda aabbaha iyo hooyada ayaa tarbiyadda ka mas-uula inanta asbaabta lagu tarbiyadayna waxaa ka kow ah inay inantu noqoto inan guri joogu aqalkeeda fadhida tabaruj aljaahiliya lama ogolo gabadhu inay ragga dhex socoto lama ogolo inay suuqa wareegtana lama ogolo inay bilaa astur aqalka ay ka baxdana lama ogolo dharkay qaadanaysana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waa axkaamta haweenka ayadana labaadee u khaasa weeyaan xukunka koobaad waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu ahaato gabadh gurigeeda joogto gurigeeda aanan ka baxaynin siirada waxaa ku taalla haween 40 sano aan aqaladooda ka soo bixin bay kutubtu sheegtay 40 sannadood dibadda ma istaagin baa lagu leeyahay qaar waxaa la sheegay 20 sano masalladii ay ku dul tukanaysay aanan ka dulkicin xafsata binta siriin baa ka mid ah radiallahu canha imaam maxamed ibni siriin walaashii masalladay ku dul tukanaysay 20 sano iyo dusheeda fadhiday baa la yidhi daraartiina way soomanayd habeenkiina salaatuleyl bay u taagnayd 2 marun bay masalladeeda ka dulkacaysay markay yar jiibsanayso oo meel dheerba ma tegayna masallada dhinaceegoonbay jiibsanaysay baa la yidhi iyo marka maaragtaanay bani aadanka xaajadu markay qabato ay u yarkacaan ay soo xaajoodaan labadaa xilli unbay masalladeeda ka dulkacaysaa la yidhi gabadha guriga inay joogtaan lagu ammaanay waqarna fii buyuutikunna waa sifadaasi waa sifo qaali oo qiimo badan weeyaan oo gabadha qiimay u yeelaysaa haddee gabadhu axkaamta ilaahay ay raacdo gabadhu qiimo yeelan oo qadar bay yeelan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam baa ilaahay yidhi xuur weeyaan waa xuurulcaynta ilaahay markuu ka waramaya sifaadka xuuralcayntu ay leedahayna sifada xuuralcaynta lagu ammaanay waxaa ka mid ah xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam khaymadahooday ku kooban yihiin oo kama baxaan baa ilaahay yidhi adigana waxaa lagu amray oo lagu yidhi aqalkay inanta muuminada gabadha muuminada iimaanka leh meesha lagu yaqaanaa inay ku qarsoon tahay mar walba fadhida waa aqalka maxaa gabadha muuminada aqalka ha fadhida loo yidhi waa dhayman bal dhayman bay ka qaalisan tahay waa dahab bal dahab bay ka qaalisan tahayoo meel adag baa la dhigaa waxyaabaha qaaliga diinta islaamku gabadha muuminada qaali bay ka dhigtay deedna meel adag bay diinta islaamku ay ku dhigtay halkaasaa calafkaaga ilaahay kuugu keenay kullamaa gabadha muuminadu bannaanka ay u baxdo way qiimo dhacaysaa baa la yidhi kullamaa inantu ay aqalka ay fadhido amarka ilaahay qaadatana qiimaheega ayaa kordhaya gabadha diinta ku dhaqantay diinta danaysana awlaadda ilaahay kasoo dhex saaraya caloosheeda badanaa waxay noqdaan awlaad culamaayo oo rabbaaniyiina bay noqdaan waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi waxaa kaloo nabigeenu uu ka digay sal allahu calayhi wasalam haween buu nebigu sheegay xilligiisii adduunka aanan joogin iman doona buu nebigu yihi aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nebigu yihi kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharkoo way xidhan yihiin laakiin waa qaawo yihiin buu rasuulku yidhi dharkay xidhanayaan baa dhar khafiifa ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodiibuu bannaanka dharkaas u soo saarayaa maa'ilaatun mumiilaat baa nebigu waa kuwa qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo sida raggu usii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyakuna la qalloocsamayaan kuwa noocaasa buu nebigu yihi jannada gali maayaan
carfiga jannadana heli maayaan buu yidhi janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nabigu yidhi carfigeeda jannada inay galaan iska dhaafay carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan zamankana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuman yihiin u baxeen deedna ma aragtaan axaadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam baa ku cadaatay inay kuwa nabigu sheegay iyaka ay yihiin gabadha muuminada waxaa kaloo laga rabaa jilbaab inay qaadato jilbaabku waa maxay waa maro haddii ay xidhato bay culimmadu leeyihiin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe aan la kala garanayn inay inan tahay inay islaan duqa tahayna aan la kala garanayn waa maro maaragtaan ka weyn jidhkeega ka weyn oo gabadhu ay dhex soconayso yaa dada maradaasaa ilaahay gabadha muuminada ku qiimeeyey yudniina calayhinna min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuuran raxiima baa ilaahay yidhi markay gabdhuhu ay xidhaan quruxdooda ilaahay casa wajalla u joojinayaa hadday qurux u dhalatayna quruxdeedii bay asturatay oo gaboobi maysa baa layidhi gabadha jilbaabka qaadatay jilbaabka ku barbaarta quruxdeeda ilaahay waa u ilaaliyaa maadaama amarka ilaahay iyaduna ilaalisay iyadana xubnaheega waa loo ilaalin ixfad illaaha yaxfadka bay galaysaa ilaahay baa yidhi xadiis alqudsi xadiiska nabigeena yidhi sallallahu alayhi wasallam ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin hadday gabadhu shareecada islaamka ay ku dhaqanto xoogeeda iyo quruxdeeda ilaahay baa u ilaalin waxaa la arkoo la sheegay haweenay 15 ubada dhashay ayadiyo ubadkeegiina ay isku eg yihiin isla eg yihiin hablaha ay dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayay dumarkii u tagay ee buuqday way ka dhex garan waayeen ilaa lagu marmoo la yiraahdo ma walaalaatihiin oo tanmatiini ugu weynaydba maya iyadii baa le may waa hooyo weeyaan markaasaa la yaabo lagu yidhi hablahaaga waad isku egtihiin waad isku jidhna waa tihiin maxay see wax u jiraan waxay tidhi yaraantaydii dharkii la ii geliyey ayaan xidhanahay tilood aqalna kama bixin bay tidhi maadaaman amarka ilaahay anigu aan ilaaliyey ilaahay quruxdaydii iyo quwadaydiina isaga ii dhowro u ilaaliyey tidhi gabadha bannaanka hadday u baxdo waxay la mid tahay baa la yidhi oo ragga ay mar walba ragga hor soo socoto waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa hadduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaa baa la yidhi uu dharaa deedna markaaba cadceedda ayaa iyo dabaysha ayaa saamaysa laakiin ubaxu geedka dushiisa hadduu ku yaallo dadka oo dhan baa milicsanoo sidaasaa loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa oo isha oo dhan baa markaas il kastoo meesha maraysa way daymoon waxaa la yidhi gabadhu markay shareecadda islaamka ay ku dhaqmayso quruxdeeda ilaahay waa u ilaalin waana u joojin oo quwadeedana waa ilaahay waa u dhowri haddii laakiin shareecadda gabadhu ay ku dhaqmi weydo aqalkana ay joogi weydo dharka jilbaabkana ay qaadan weydo raggana kolba dhinac u hormarto sida ubaxa geedka ka go-ay bay la mid noqono 20 jirkeega gabadhaasi ma aragtaan ay ku foolxumaan markiiba 20 jirkee ku boosbooska waad fahmaysaan baan u malayn way foolxumaan khalaas shareecada diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan adiga maslaxadaada ku jirta ogow Fatima radiyallahu anha bintu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam markii ajashu ay ku soo xaadirtay ayay dumarkii ku tidhi reer Madiina meydkayga in la arka mar rabiye bal sidaad meydkayga ragga uga qarin lahaydeen ka tala bixiya bay ku tidhi barigaan meydka waxa lagu qaadayay sariir yar oo qofka la dul dhigo oo dadna korka sare la saaro marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo markaas Asma bintu Umays radiyallahu anha oo ka soo noqotay marka ardul Habasha wa Jaafar ibn Abi Talib xaaskiisii weeyaane ayaa tiri aniga nacashkeena ka duwan baan ardul Habasha ku soo arkayo qofka lagu dhaxridaayo deedna afarta dhinacna mara lagaga xidhayo qofka aan la arkayn ba meydkiisa marka Fatima radiyallahu anha waxay tiri kaas u sheega Caliyo iyo wiilasheedu aniga ka halay sameeyo deedna markaaba kiiba loo sameeyay maalintay dhimatana kiiba lagu dhaxriday Fatima aabaheed
محمد عليه الصلاة والسلام سقال بلود أو كلية بالليل أما دور بلود أي كدم بيس أبهد والنبي كان وشيق عليه الصلاة والسلام maalmaha kamid nabigu xaasaskiisa dhex fadhiya ay Faadima radiyallahu anha u timiday ayadoo sida aabaheed u socota aabaheed bay socodkiisa lahayd deena markaas aabaheed bay dhunkaday dhegtu markaa nabigu arrin sir ayuu la siraystay isla markiiba dadka hortooday ku oyday hadana nabigu wuxuu soo celi dhegtaada fariin kale ku sheegay oo sir ah markaa buu u sheego isla markiiba hadana way faraxdo way qososhay maalin dambe المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيا كتري سرتي مالنتا أدقي أباها إنك دحيسين مرنا لو أيدي مرنا أتكو فرح ذي بليشين وعيتر هو يسر أني أباها إنك دحيس أيا هيدو عدنا وشيء مايو فاطمة رضي الله عنها سرتي إنتو نبي ولا ميسن شيء لأن ضدك التربية بالله بري حفظ السر سرت الله بدو قف كدحيس ضدك كلا إلا شيء معها إلا دقيستنا معها laba qof oo sheeko wada labu nabigu yiri qofka dhageysta dhageysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagaha lagaga shubaab rasuulku yiri yusabbu fi udunayhi bu nabigu yiri aanuk hadal macnihi suha laba qof oo arrin sira meel ku siraysanaysa qofka dhageysta bu nabigu yiri ayakuna dhageysiga arin sirtooda laga dhageysanay ay dhibsanayaan qofkaas qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shubaabo nabiga kaleey salaatu wasalaam Faadima radiyallahu anha markaas sirtii nabiga may sheegin intuu nabigu noolaa laakiin maalintuu nabigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhay Aisha radiyallahu anha oo tiri arintii maalinta ii sheeg hadda waxay tiri hadda waa ku sheegay maadaama aabahay uu dhintay sallallahu alayhi wasallam adduunyada ka intiqaalay hadda waan ku sheegay marka hore wuxuu nabigu ii sheegay uu ila siraysteen la ooyay ajashiisii buu nabigu ii sheego wuxuu igu yiri waan socday anigu iyo Faaduma iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweeneyda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyina aamus buu Faaduma ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka 8 bilood 9 bilood muddo yar bay ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas nacashkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia ardul habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina waxay u ducayn jireen Faatuma oran jireen Faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda Allah asture meydkayagina wayna asturtay bay yiraahdeen ilaa meydka barigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la duldhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qofku de amalba ma sameynay hadee toole ayay ka digtoontaa in la arko jirkeyga oo dhaqdhaqaaqaya inakana maanta hablaha haweenkeeni qaarkood mid walba meesha yar jirkeedu ka qurux badan yahay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadanada Asiyaatiga haweenka magacooda cawro yiraahdeen cawra macnaha inaka cawrada meel u baan u naqaanaa cawrada raguna ma bayna surrati wal rukba laakiin haweenka jirkooda dhan ba cawra ma cadal wajhi wal kafayn labada gacmood iyo wajiga mooyaane inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawro in la arka ma dhar ku dhagsan inay xidhato ma dhar jilbaab leeyahay waa inay qaadato quraanku uu sheegay oo markay socotiyo markay gadaal u socotiyo markay hor u socoto aan la kala garanayn qofka meesha maraya ma inan ba ma islaan aan la kala garanayn dharkan aad xidhatay ba qiimo ku yeelaya ugu ee ragga aad istusayso wax macna ay ku sameynayso ma jirto qarba kula hadaan jilbaab qaato indha shareerna qaato oo ayaa garanayna fool xumaayna qurux badanahay hadday rag wajigaaga arkaan hadii kala macna ma sameynaysa macnaha waxa sameynaya waxa weyn waa asturka Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray Anas bin Ammar inankiisii buu yeedhay abihi baa u yeedhay isaga abihi Ammar baa u yeedhay Ammar al-Asma'i wuxuu Anas aroos baa tahay buu caaw aroos waayahay aba
caqdigii baa dhacay soo maydhaa lagu yidhi dharkan xidhaa lagu yidhi caroosaddiina qolkaabay ku jirtaa orada u gal baa laga yidhi alfirso inanka waa nin dhallinyaro ah gabadha ma arkin ayaduna may arkin gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa inanka waxa u doortay waa reerkeeda halka inaka zamankeenan wiilashiya gabdhuhu biladhan lagu leeyahay way wada sheekaystaan oo way isla socdaan oo way isla hadlaan oo way wada xidhiidhaan oo maxay ka xidhiidhayaan waa macsiyo xidhiidhkaasi waa macsiyo is aragays arkeena waa macsiyo khilaafa shariica weeyaan waxaas oo dhanba shayga arooska haddii khilaafa shariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ogow waa wax zamankeenan dhallinyaradu nuuca kale u wada noqotay leanno arooska aabihii hooyadii baa sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay dadna dad cusaada markaa dhalanaya dad غافلين oo qafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya laana markii la dhisay reerahan diin lagu masalaynin alla ka cabsi iyo alla ka baq asaas loogama dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan marka ubad mufsidiin oo mujrimiin dhalanaya maanta oo wada dhanxiira inankii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen caqdigii baa dhacay aqalkii buu galay aroosadii baa fadhida uu salaamay salaamu calaykum waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda isaguna nin dheer buu ahaa oo laankaa la eego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii baa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi deedna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu kaa soo dhex mariye hadalkaygiibuu ku qanco wuxuu is yidhi kolley aabbahaayo hooyadaa inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogyihiine iska barakayoo iska bismilayso habeenkii u horreysay leylatu zafaafkiiba uu la seexday ilaahay habeenkiibuu aqbalo caloosheedii durba ilmaa ilaahay geliyey ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday imaam daar alhijra imaam maalik raxmatullaahi calayh caalimu lmadiina 40 sano مسكيتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودروس حديث كليدا علم الحديث كأيو أمضى كبرايي 40 كاسنا نبالي إمام كاسي مقالة المدينة نحن ذكى وكما قادا مركي اللي محاد كبها وحدا الله دعينا وحو أورنجري ما ماشى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا لبدي صاحب أي هوستي ذا كجيران ميان كبا كدل سعون يا أبو أورنجري إن أنت يويلكي أبيه هو يدي أوه كان سمي أمر كودا waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunka oo dhan uu buuxiyay ilaa qiyaamaha dhan loo duceynayo madhab imaam maalik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekheena shaafici rahimahullah waa muallimkiisi wax baray weeyaan wuxuu noqday muallimkii imaam ahmed buu noqday aimada islaamku sidaas ay wax isku barayeen oo kala faa'iideysanayeen gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay ولد مطيعة أو إلهي أضيع سنة لبدا والد أضيع سنة أولاد برية أو أولاد بريين با إلهي سجن أوسين سعيد بن مصيبها رحمة الله عليه شيخ الحديث محدث في مدينة أيا إن أنتي صنع عالمات بيهي علم الحديث كآد وتقعني والله اسكو الشيخي والله يدي شيخة إن أنتي سوى وقبر وناكسن قروح بيلاده هاي دين إلهي وكو قرحيو وعالمات وعلمك أبيهد كقادتها معاوية أيام مغلي الله ونحرسته إمام أمير كمؤمنين معاوية ومركز الشام جوغا ودولة الإسلام كورنا مارك تاني أمير روح أيام مغلي لأن مركز أبو صادر تأرقو وحيري إمام كاسي مارك تاني سعيد بن مسيب واحد كتر هذا إن أنتيسا هالنصي يو إن كيغانو لسياي سعيد بن مسيب واسكدي دو وحيري إن أنت إذا أميرك مؤمنين إن كيسا أنو مسين أي رالي هيغا نقضي بودي ولا فرس ما أنت إنكم مديد لهين من مدحوينا هدي المهيس إن أنت هذا كاس وضون هذا فقير ومسكين ومسكين دحفرديا مديد يسد بل واحد أقول الله ليلة القدر بأي مديبة إلا داد أدوية تكون نقضي ما أنت إمام كان مسكين كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كأمة أوغا آخرين آية
inantiisii muxadisada ahayd waxaa soo doonay amiirkii muuminiinta ee dowladda islaamka markaa adduunka xilliga mucaawiyana dowladda islaamku xilli ay ka taya badnayd oo ay ka ciidan badnayd oo ka dhaqaalo badnayd oo ka dhul ballaadhnayd ma soo marin baa la yidhi taariikhda laanna zamankii mucaawiya zaman alfutuuxaat buu ahaa dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yidhi yaa sheekh gabadha sii amiirkii muuminiinta amarkiisa hadiidan inankiisa sii wuxuu yidhi ma siinaya buu yidhi maxaad u siin weydaa lagu yidhi boqor dhan baa inankiisii u doonay gabadhaade adaaba nasiib leh markaasuu yidhi wuxuu yidhi inantayda marka aan u dhisay inanka mucaawiya ee qasrigii mucaawiya ee damisha ku yaalla inantayda la geeyo ay saddex hablood timaheega intay qabtaan timaha u tidcaan xagga kalena saddex hablood ay khadam u khidmaynaya ay u khidmeeyaan kabaheegana la hor qaado dharkeedana dhulka sidaa looga qaado diinteediisa uma dayicin buu yidhi halkay diinteedu mari buu ka yidhi inantayda markaas soo cilmigii aan yaraanta ku baray iloobi mayso halmaami mayso uu ka diiday inuu siiyo uuna ka dhaqaajiyey ardaydiisii ka mid ahaa ayaa sheekhiiba uu ka waayay markaa darsigii fulaan aawaya buuhi waxaa fulaan xaaskiisii baa ka geeriyooto hawshii bay ku jiraan aaskii markaasuu sheekhu darsigii intuu joojiyey isaga iyo talabadii intaysa soo raacaan bay aaskii ka soo qayb galeen deedna markii aaskii laga soo noqday ayuu ardaygii ku yidhi sabir iimaan allaha kaa siiyo uu tacsiyadeeyey waxa uu ku yidhi inantaydiina waa kuu diyaaray markaa diyaargarowda u kaalay oo guursuu ka yidhi ficlan mucaawiye wiilkiisii waa u diiday inantiisii ardaygaa inantu ay ka geeriyootay ee ardaydiisa ka mid ahaana inantiisii waa u dhisay baa la yidhi boqor wiil u dhalana waa u diiday inantii xertiisii ka mid ahaana gabadhiisi uu siiyey laanna dadkaasi adduunye kamay fikireen aakhiraday ka fikirayeen qofka diintiisay eegayeen idaa aataakum miman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu baa nebigu yidhi hadduu ini yimaado qofaa diintiisa iyo dabeecadiisa aad ka raalli tihiin u guuriya haddaad u guurin weydaana arlada fasaad iyo fidnad xun baa ka dhici doonta buu rasuulku yidhi guurkooga diin bay eegayeen dabeecadda wanaagsan bay eegayeen halka guurkeena inaku aan eegayno qabiil waa qoloma lacagna ma haysto soomaalidu labadaa bay qofka weydiisaa iminka war ninka gabadha iga soo doonay waa qoloma waa qabiilkee ila qabiil baa diin u noqda soomaali maanta tagal dhaqaalana muxuu haystaa lacag wallaahi lacag ma haystee miskiidku cilmiga ka dhigtaa dee ma kutubtu siin buu ku odhan xusin waa u diidiba hadduu doono guriga la rabaa gabadhu inay joogto wixii calaf ilaahay halkaa ugu keeno ay ku qanacday ku asturto oy ku sabirtaa loo baahan yahay gabadha muuminada ee saabirada ee saadiqada aabaheeda iyo hooyadeedna adeecsane baariyada u dadkeega ilaahay jalla wa ala awlaadeeda wuxuu ka soo saaraa culimo ilaahay ka soo dhex saaraa culimo sifada kale ee dumarka axkaamta haweenka u khaaska waxaa ka mid a kadalika xukum la yidhaahdo ma aragtaane taacatu zawj inay haweenaydu ay ninkeeda ay adeecdo taaca oo nabigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam ninku naagtiisa hadduu u yeedho iska diido waagu wuxuu u baryaabuu nebigu iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay malaa'igtuna ay lacnadayso haddaan amri lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof bini aadan oo sidiisaa inuu u sujuudo waxaan ku amri lahaa haweenaydu ninkeeda inay u sujuudaan amri lahaa buu rasuulku yidhi laakiin sujuudda ilaahay unbaa iskale cid kale in loo sujuudo ma bannaano bini aadan noolna in loo sujuudo ma bannaano ku qabri ku jirana warkiisa iska daaba sujuudda ilaahay baa iska leh laanna sujuudu waa cibaado dhul isdhig baa la dhaha dhul isdhig halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay kheyrkii halkaa in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halkaa dhulka in loo dhigo marka haddii laakiin ay dhici lahayd buu nebigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaqa ay raggu haweenka ku leeyihiin buu nebigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay
waxaan amri lahaa buu nabigu yidhi haweenaydu ninkeeda inay u sujuuddo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey. ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo. oo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam nin baa weydiiyo ku yidhi dumarka iyagu xuquuqda ay nagu leeyihiin nebi allow bal noo sheeg. markaa buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi haddaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa, haddaad dhar xidhan waa inay kula xidhataa. macnaa dhar baad iibsatay maanta, iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa. maaha inaad xaafadana aad tidhaahdaa soor yar iyo waxyar karsada adiguna maqaaxid intoo tagto hilibgeel aad ka cuntaa. ma cadaalad baa? cadaalad maaha, waa dulmi. waxaad cunaysa reerkaagu ha kula cunaan buu nebigu leeyahay. soo iibi hilibgeelko waxaad tidhahdaa noo kari annakii carruurtay adigu ha wada cunne. waxaad cuni baa nebigu yihi xaaskaadu waa inay kula cuntaa, waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa. dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa oo tidhahda aniguba maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada intan yar, allah ku barakeeye. cadaalad. haddaad 2 xaas leedahayna iyo 3 xaas iyo 4 xaas hadduu ilaahay ku siiyeyna cadaaladda waa inaad ilaalisaa. kalgacaylka jacaylka taa adigu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa, laakiin xagga cadaaladda waa inaad wakhtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladla dadka waa inaad u siisaa. oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo, dadna waa in la siiyaa. ilaa islaanta 6 ciyaala haysa iyo 2 u wada haysa isku kharash maaha. laakiin waxaa la diidan yahay inaad tanna aad bishan wax siisatanna aanad waxba siinin. taa lama ogole. mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa. liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah baa ilaahay yidhi. kan arsaaqada u waasicine annakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo. kan ku koobne ku yaraynayna baa ilaahay yidhi inta uu karaya baa ilaahay yidhi ha bixiyo. qofka bini aadanka wuxuusan karayn ba ilaahay maba saarinbe. haddaad wax iibsan waa inaad u iibisaa iyada. haddaad dili buu nebigu yidhi haweenka ila in la yar edbiyana shareecaddu way sheegtee wejiga in laga dila maaha. laanna wejigeedu waa meesha quruxdeeda laga eegta weeyaan. in wejiga laga dila maaha. naburo waaweyn oo ka muuqanayna dumarka in lagu dhifto maaha. in la caayana maaha. in la caayo lama ogolo. ha caayina buu nebigu yidhi xaasaskiina sal alla alay wasalam. bal aadaabta dumarka loola dhaqmaayo shareecaddaa sheegtay. nin saxaabiya oday baa u yimiday rasuulka isagoo inantiisii gacanta haya. markaa buu nebiga tusay calayhi salaatu wasalaam. yaa rasuulla eeg buu ihi ninkii sacad binu rabiic ahaa inantaydii siduu u dilay bal eeg buu ka yidhi. markaa wejiguu ka dilay oo calaamad baa ku taalla. markaa buu nebigu u cadhooday rasuulku maalinta wejigiisa isbedelay. shareecadduna ma soo wada degina kolba inbaa nebiga kusoo degaysa dushiisa. wuxuu yidhi orodoo u geeyo ha ka jarata buu yidhi. siduu ugu dhiftay iyadna ha ugu dhifata buu yidhi. markay dhaqaaqeynay sii jeesteen ayaa soo degay waxyigaa ilaahay nebiga ku soo dejiyey. markaa buu nebigu yidhi soo noqda. way soo noqdeen. markaa buu nebigu yidhi aradnaa shay wa araada allaahu shay-an aakhara baa nebigu yidhi. sibaan inakuna dabacsanayn ilaahayna si kalu damcay buu rasuulku yidhi. iga dhagaystay buu nebigu yidhi aayaddan ay gu soo degtee alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici sowmahan ilaa aakhir alaaya. aayaddaasaa marka nebiga ku soo degtay lagu caddaynayo qawaamada inay raggu ay leeyihiin. hoggaanka reerka ragga ayaa iskale. hoggaaminta taladu waxay ka go-aysaa waa ninka. xaaska waa lala tashan karaa. ninku naag xaaskiisa talo uu weydiin karaa, laakiin go-aan qaadashada odayga ayaa iska leh. oo maxaa ilaahay yidhi qiwaamada raggu waxay ku heleen waa 2 shay. marka hore isku ilaahay baa kala fadilayba. isku karti maaha, isku quwad maaha, isku dulqaad maaha, isku caqli maaha. ilaahay baa kala fadilay caza wajalla. nacam dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba
halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga kakanaan iyo adayg ayaa maaragtaan naxariis darro ayaad moodaa inay ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadilay bini aadanka marka labaadna baa la yidhi maadaama iyagu ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaga laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerka baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan ragga looga fadhiyaa baahida inay daboolaan marka qawaamada labadaa shay bay raggu ku heleen dadna ilaahay gabadhana uu ammaano wuxuu yidhi gabadha saalixadda ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yidhi sifaadkaasaa dumarka lagu ammaanay waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahaygay adeecdaa waa qaanitato ninkeygana way ka dambaysaayo way ixtiraamtahay oo way u hoggaansan tahay waa xaafidada waxaa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay iyo reerkeedaba way ilaalisaayo way ku fadhidaa hadday reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadu ma sheegto haddii ninkeedu ammaano u dhiibtana ammaanada waa u ilaalisaa markaasaa ilaahay yidhi wallaati takhaafuuna nushuusahunna baa ilaahay yidhi ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtaan tu madax taagaysa oo amar diidda inagu samaynaysa baa ilaahay yidhi sidee loola dhaqmayaa marka haddee naagtaadu amar diidda kugu samayso ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa may halkaa looga bilaabi maayo hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo amarka ilaahayna ay qaadan weydo amar diiddana aad ka dareento reerkana inaynan wadaynin aad aragto waxaa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya u nasteexeeya dad hortiida loogu nasteexayni maayo xataa marka loo nasteexaynaya islaanta maahayn ubadka dhexdeeda maaha si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla keliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiye baad leedahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso waa in ilaahay aan ka baqnaa faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya aadaabta islaamka loo sheegayaa kala dambaynta lagu baraarujinayaa alla ka cabsiga lagu baraarujinayaa diinta lagu tarbiyadaynayaa naseexadaasa in muddo lagu wadayaa muddo badan haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fi lmadaajici baa ilaahay yidhi jiifka uga tega baa ilaahay yidhi ha ag seexan macnaha daad doonto aqalkan uga baxmar marka qaarkood masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago wixii nin dhex maro cidna ha u sheegin laakiin afka uun yar buuro iska yar aamuso aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiranina hablahaaga dirdiray ubadkaaga Soomaalidu markay caroodaan islaantii aqalka ka saaraan halkana shariicadu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro ceebtooda banaanka looma saaro aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adiga banaanka u saaray ogow laakiin adiga la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amar diida ay kugu samaysay naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday adiga laga rabaa marka inaad aqalka uga yar tagto gogosha ayaa looga yar laga dheeraanayaayo ciyaalka la iska dhex seexano adaa iska khidmaysano biyahaad iska soo dhaansano dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa aabba quraaca ii keeno aabba qadada ii keeno islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay aqalka ku noqonaya markaa ciriidhi hijrada aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad ilaahay wuxuu yidhi wadribuhunna markaabaa ilaahay yidhi garaaca haddaba sidee loo garaaci markaa haddana mabud baa lagu garaaci hangool soo ma taqaanaan reebbay maxaa tiri hangoolka ya waa isaga la waay hangool bay dumarka la dhacaan la dili maayo tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu shaydhiyo iyo ya saasaa loo tarbiyadeynaya leanna waa ubad waa ilmo yaroo kore weeyaan islaamtu sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid maxaa yeelay 10 cunug ee aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay iyadaa ku tacabtay warshada laga soo saaray ubadkaas waa caloosheedii ogow
marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran yakhluqukum fii butuuni ummahatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaatin baa ilaahay yidhi daalikum allaahu rabbukum yakhluqukum ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed waa raximka dhexdiisa fii halaaa dulumaatin baa ilaahay yidhi madheerta hoosteedu waa madow raximka dhexdiisu waa madow caloosha dhexdeeduna waa mugdi saddexdaa mugdi hoostood ayaa ilaahay qofka bini aadamka kusoo dhex sameeyey marka calooshaasi taada maaha taydana maahayna waa ta islaan haweenayda weeyaan maadaama haweenaydu ay warshad ilaahay uu ka yeelay ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin u sabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culummadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashka gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna maaragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi daadna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiinna ilaahay baa sheegay bal meesha shareecadda islaamku ayna dhigtay eega sida laynii tarbiyadaynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaaga aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyoo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat الnisaa anagu qur-aanka kuma hayno suurat الrijaal laakiin suurat الnisaa qur-aanka waa lagu hayaa فإلهي تبارك وتعالى هنوصل نقولنا هنتوبت كأنه تكلوا على نجربا أولادنا هنتربي ذينه وأولادنا وحكوا تربية ذيننا ومحي أخلاق دون أحسن احترام كان برينا حق إلهي بان برينا حق لبد والد بان برينا أيضا في سورة التحريم إلهي وكيري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آيات سبب النزول علي بن أبي طالب مركو فسري وحيري أهلكيننا دين تبرا بكرجنت هيدوني نالتينا نركب بدبادية الذين نركب بدبادية معناه هذو الذين دين تبرا مركا دين تنوبت كنا برينا دين تو محي قرآن كان برينا حفظ قرآن كان حفظ سينا نوبت كنا تذكر هوري سكول هذا دكتور ويدا يعمانه بل أنت دنبون هذا بقبتين نوبت كنا قرآن كان برنا وسنة النبي كنا هم برنا عليه الصلاة والسلام وسنة عادة سنة الليلة رقم كجريها لحظة ذا وبتجينا هكبر بارنا سنة عادة ومحي جيف كآدابتي سهم برنو درك الله حدنا يا آدابت درك الله حدا هم برنو عنتذا مرك العني آدابت الله قعنا هم برنو أقل كمرك الله قال يا دعاء الله جبحها هم برنو أقل كمرك الله صوغ يا دعاء الله صوغ له هم برنو مرك سوق الله مرة يا دعاء الله آخرسته هم برنو هبينك مرك الله سيحنا يا آدابتي يا دعاء الله آخرسته هم برنو ubadkeena waa inaan yaraantooda waa inaan barnaa waxyaabaha la yiraahdo sunnatu aada waa in ilmuhu ku barbaara maaragtaanay adkaarta nabigeena kaleey salaatu wasalaam lana talaaba nabi maxamed ma qaadin baa la yiri ilaa wuxuu ku qaadi jiray dhikriga ducuu laha haduu aqalka galayo ducuu akhrin jiray haduu aqalka ka baxayo ducuu akhrisan jiray haduu baytulmayga galayo ducuu akhrisan jiray haduu ka soo baxo ducuu akhrisan jiray haduu jiifanayo ducuu akhrisanayay haduu dariiqa marayo ducuu akhrisan jiray haday bushabelata ducuu akhrisan jiray haduu seexanayo ducuu akhrisan jiray haduu dhar xidhanayo nabigu ducuu akhrisan jiray hadii ilmo dhasho nabigu ducuu akhrin jiray hadii qof dhinto geeri la soo sheego ducuu akhrisan jiray dabayl haday timaado nabigu ducuu akhrisan jiray roobku markuu daayana ducuu akhrisan jiray bishu markay balata nabigu ducuu akhrisan jiray daabad haduu fuulay ducuu akhrisan jiray hadduu safrayo ducuu akhrisan jiray ducooyinkaasi waa inaan ilmihiina ku barbaarina yaraanta kutubtan yar yar ee akhrista xisnul muslimka iyo ama adkaar nawawi aqalada hay noo dhaxyaalaan waa kitaabka markii la alifay reed mashaqay oran jireen bicid daara washtari al-adkaar qofka markii la imaamkii kitaabka uu sanifay waa la taabacay oo maktabada ayaa la dhigay
kitaabka soo iibso orodoo markay qofka lagu yiraahdo ayay oran jireen dadka ducafada ee fuqaradu lacagan ku iibsanaa ma haysano markaa bay oran jireen kitaabku yuuna ka dhamaanine daartaada iibiyo kitaabul adkaar soo iibso bay oran jireen inagana zamankeena kutubtiiba xataa wax akhrisanayba uu sii yaraanaya mobile baa loo wareejiyay wixii oo dhanba war mobilka ma innaka la ayuha muslim maktabada ayaanan la baabi'in oo masaaxifta masaajida inoo taal ayaanan laga hijroonin waxaan mobilka lagu shubay run maaha mar kaliya laga saari kara gabigiisaba waa dagaal weeyaan laynagula dagaalamayo si shareecadina loo tirtiri lahaa ayaa aalaadkan loo sameeyey inagu aad leediin khayr baa ku jira waa laga duubaya war wax khayr oo ku jira ma jiro aalaadkan ya sheekh khayrka ku jira iyo sharka ku jira midkee badan sharka ku jira ayaa badan waxaad soo galaysaa masaajidan oo salaatul jumcadi ka laga akhrisanaya suuratul kahf kitaabkii quraankeena musxafkiina laga hijrooday corona intuu yimidayna waxaad maqlaysaa wadana dhan oo carbeed oo la lahaa kutubta masaajida taala isku taabanina oo ma quraanka ilaahay ba laga qaadaya corona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma quraanku waa dawe taabashadiisa dawa iska daa wax kale qaadidiisa cibaada akhriskiisa cibaada wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma shifaa balad shifaa dawa hatta ma huwa shifaa habatu sawdad yadu waa dawa laakiin quraanku waa shifaa malabka saafiguna waa shifaa hadaad maqasho waa maxay labada shay xanuunka loo isticmaalo kama tagaan balay way baabiyaan malabka iyo quraanka yaanan quraanka laga hijroon ubadka quraanka alla baro oo axaadiista aqaladaha lagu akhriyo oo suuratul baqara aqalka lagu dhax akhriyo la tajcalu buyutakum maqabira ba nabigu aqaladiina qaburaha ka dhigina fa inna shaytaana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suuratul baqara suuratul baqara aqalka dhexdiisa lagu akhriyo buu nabigu yiri aqalka shaytaanku ma soo galay waa ka farxa suuratul baqarana waxa lagu akhriyaa kaliya waa 45 daqiiqo haddaad badhida meel u fadhiisato 30 daqiiqad ku dhamay suuratul baqara 30 daqiiqo 40 daqiiqo waagi markuu bariyaba ma kari weyn inaan quraan akhrisano facebook saacado dhan iyo habeen dhan baa lagu soo jeeday qulubtii baa sii dhimanaysa haddaad aragto ummad quraankii kala furi karila oo akhrin karila oo masaajida fadhiisan karila oo diintoodii ku dhaqmi karila haddaad aragto waxaa daliil u tahay ummadda qulubteedii baa sii dhimanaysa quraanka akhriskiisu waa cibaado eegidiisu waa cibaado qaadidiisu waa cibaado ku dhaqankiisu waa cibaado barashadiisu waa cibaado quraanka aan akhriyayna aqaladeena quraanka ku dhax akhriyayna runtii zamankan aan galay waa zaman adag baan galay hadda toole zaman adag oo calanan laynoola dagaalamayo awwal ma tafqaduna min diinikum al-amana wa aakhir ma tafqaduna min diinikum as-salat salaadii baa lahayn maanta salaata tabaacud wax leeyahay ayaa wadanadii islaamka oo dhan lagu soo rogay wala adri salaadaas sidee ku ansaxaysa culimada weydiiya ilaahay hanu soo noqono dagaal baa laynagula jiraa shayga ugu horeeyay diintiina aad tabi doontaan baa nabigu waa amaanada qof aamina la waayi doona qof la aamino tala ummadaad iyo tala reereen lagu aamina la waayi doona buu nabigu yiri qof amaana la waa la waayi doona shayga ugu dambeeyay diintiina aad waayi doontaan waa salaada buu nabigu yiri waa salaadii maanta waxa lagu dagaalamay waa salaadii mar la yiraahdo masaajida ku tukanina iyo mar la yiraahdo maartaana kala fogaada sida nabiga si ka duwan u tukada sida buudistigu ay u cibaadaystaan cabadatu naar kuwa dabka caabudaya ciidda caabudaya sida u cibaadaystaan baa lagu leeyahay adiguna ilaahay u caabud oo sidii nabi maxamed ilaahay ha u caabudin si aan salaadaadii cibaadadaana loo aqbalin dagaal weyn baa inagu socday inaguna maanta waan hurudaan walaalayaal narjac ila al-islam diinteena ku soo noqonaynaa ilaahay kitaabkiisaan akhrisanaynaa waxaan gowsdambeedka ku qabsanaynaa diinteeda naftaada waa iyo diintaada waa waxa la doonayaa meesha maanta arintu ay marayso naftan waay inaad tirada laga raba diinteeda ma waaye الله ناصر بس الله إنه دم بداف الله إنه دم بداف صادرتين إن شاء الله عن توبت كنا وردها حكا كعنا حرق إلهي هنقبصنه هوين كنا ما ركتاني سيرة الصحابيات كأخرستا مدارستا علماء وإن نفرنا كحرمة قرآن كحفظية
haddaad xufaad noqotaan ood gabadh mutadayinada aada noqoto duriyad barakaysan baa ilaahay calooshaada ka soo saari doonaa. allahna inagu anfaco. aquulu maa tasmacuun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما. يا مقلب